عثمان بن مطعون رضي الله عنه صحابي قاس مكة مركي للجوغي بداية الرسالة بداية الدعوة waxa uu ku jira magangaliyada Waliid bin Mughira odayga la oran jiray Waliid bin Mughira wa Khalid abihi waana quraanka aad loogu caayay utullin ba'da dhalika az-zanin an kana dha malin wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin fi surati al-qalam wa kila ka warma taariikhdiisa taariikhda xun ee laga reebay ha ninkaasi Usman bin Mad'un saxaabigan jaliilka وعلى وليد بن مغيرة وقعن كلها لأن وليد بن مغيرة أيام قريش انتو سدحتها يجيبوا يدي قريش وحادوا قاعد أنك عثمان بن مطعون ما كان قال يده يدو كجراي وعدوا دوان كرتها ما جربوا مركز عثمان بن مطعون مقالة مكوس كدح سعودة مرة اللي مركو مقالة مكة ونحمر يا وصعدوا وحو أركا يا ماشي أصل لقوا عذابا يا أبو ذر هل أصل بلال بن الرباح لقوا عذابا يو بلال بو أركا هل كان لقوا عذابا يو خباب بو أركا هل كان لقوا عذابا يو سجيبها مركا فكرو يدي رجي صاحبها اسكو درجة هيدينا ماشينا لقوا عذابا يا أديكونا نين قال أو مشركة أو إلهي غيرك عابده يا ما كان قليدي ساد مقالة ما كان دحس عتابو يدي والله يا أرنكاس الدين هذا نقص بيكوت هاي بودي نقص حيكوت هاي نقصان بيكوت هاي بودي سرفي عنو سو جيستد بي مركاسو ayuu u yeeray marka wuxuu yiri Waliid bin Mughira uu tago wuxuu yiri Waliid bin Mughira markaas uu yiri walaalahayow Waliid bin Mughira magangelyadiisu aad bay u fiican tahay ninka uu magangelyo uu siiyana cid sida u eegaysa ma jirtee aniga magangelyadiisu u soo celiyay kuna raali noqday ilaahay mooyaane cid kale inaan magangelyo weydiisan ma ku raali noqday waanu celiyay ogaada buu maanta laga bilaabaa markaas Waliid bin Mughira uu ka daba hadlo وادوكتيهم بودي هذا لقى بلعبان نكا مغنغليه ديدي انو واكا قاتay waxaad ka yeelaysan ka yeel Qurayshay majliskiibu Usmaan bin Mad'un ka dhaqaaqay Allah raali ka noqday nin shaacir oo halka Kacbada agteeda fadhiyo la dhageysanayo bariga shaacirka ayaa aad loo dhageysan jiray ninka shaacirka oo aad loo dhageysanayo ayaa ma aragtaanay ayuu markaa isdul taago sidaa buu shicirkii gabaygii buu dhageystay صلوا على الحبيب شاعر كامركا وحوس لما بيجي هذا لو عجيب وكهل يقول ألا وكل شيء ما خلا الله باطل بوي ألا انتبهوا براروغا وعلي وحي إلهي كسوهر أولا وباطل ويان عثمان بن مطعون بايري صدقت الرمبات شاكتين بوكي مركا شاعر كي اللبيد بس داو ايغان دادكو دانا عثمان بن مطعون بس داو ايغان مجمع عن شعر كدغيسنا يا هل قف مؤمنكم مجري ووضع مشركين مركز يري وكل نعيم لا محالة زائله نعمت كستو جرتنا وإن شكي كما تاغنبو إن زولي سي بابا عيسو مركز كوري كذبت بين بعد سيكتبو كيري نعيم أهل الجنة لا يزول أهل الجنة النعيم كوكو مزولي سي بوليوا دائم بوكيري وليد نكر لبيد سداسو ايغاي قريشي مجالستينا غورما نيمانكا شعرada loogu bahdili jiray buu maanta agtiina waa la igu bahdilay ninkana wuxuu ahaa shaacir jaziirat al-arab oo dhan laga yaqaano shicirkiisa aad looga dambeeyo maanta wuxuu yiri beeshkan niitiriyay inuu soo diyaariyay meesha inaan ku gabiyo waaba la masaxo waa la bahdilay buu zero ba la igu soo celiyay goorma halka gaadhan in shucarada agtiina sida la igu bahdilo mid baa hadloo yiri adageysan kani waa mid waalano diinteediina uu ka baxo diinta Muhammad buu raacay adagaysana wuxuu ku yiri ma aragtaan noo wad markaas diin kamaan bixine diintii islaamkaan galay buu diinta islaam diintii xaniifka toosnayda ilaahay khalqiga ugu tala galay ee nabi Muhammad uu la yimid baa raacay oo rumeeyay ama inako dhagax iyo qoriyo iyo mushrikiin baatiino ilaah khayrkii baad caabudaan buu kay kii gaalka ahaa ee mushrikii baa soo kaco ishu ku dhifta Usmaan bin Mad'un halka buu ku dhiftay إيش أمرك وقول دفتر لا يدري إيش كلا بيسيد ديس كل جيبه واحد مؤمن المشي نحتاجه مجمع هلكا جوجو دن يبوحة كعبة أب جوجو وضم مشركين وليد بن المغيرة أمرك المشي تاجناي وأركاي وكوك أصلي وي مدوح وكويد عثمانو إيش هذا نبرك الله قول دفتي غني بكاهد وكدق تونيد لكن ما كان قليدي إذا مركات كبح ذي
durba waataa dhibaatadii ku soo gaadhay arag buu ka yidhi markaasuu yidhi yaa abaa cabdishamsi dhegayse buu ku yidhi may buu yidhi ishan lilmaynaysee biyuhu ka socdaan waxay looyeysa ma taqaanaa maya ii sheeg waxay leedahay sida walaashay ishii kale sida loo cawiray ilaahay dartii loogu cawiray anigana maxaa naburka uu ilaahay dartii igu soo gaadhi waayey la ooyeysaa buu ka yidhi yaxtasibuun diinta dhibaatada ku soo gaadha ilaahay dartii bay ka ahayd iyakoo ajar ilaahay bay kaga doonayeen ilaahay kayrkiina maaragtaanay haba yaraatee gurmad iyo gargaar asxaabta nebi maxamed kamay dayin hadday baryootamayaan ilaahay bay baryayeen oo ilaahay baa la baray hadday kaalmo u baahdaanna ilaahay bay kaalmaysanayeen hadday cabsi noqotona waa dhimanaysaa saxaabada nebiga laguma cabsiinay bal sida gaaladu nolosha u jeceshahay ayay asxaabta nebi maxamed inay diinta u dhintaan u jeclaayeen khaalid ibn alwaliid radia allaahu canhu rasaa'ilkiisi waa qoran tahay markuu madaxda furus iyo ruum warqadaha u qorayo waxa uu ku odhan jiray soo islaama haddaa islaamnimada qaadan weydaanna jizyadda noo ogolaado jizyadkeenna haddaa jizyadda diiddaan buu odhan jiro jizyadda bixin weydaan waxaa soo kicinayaa rag baa ila joogoon magaalada ku hayaa madiine raggaabaa nagu soo kicinayaa dhimashada u jecel ilaahay dartii inay u dhintaan u jecel sidaad inagu khamriga iyo zinadiiyo nolosha aad u jeceshihiin ayaa iyaku dhimashada u jecel yihiin buu odhan jiray waad dhimanaysaa saxaabada nebiga laguma cabsiinay makhluuq baa waxayana lagama dhaadhicin waxa laga dhaadhiciyey ilaahay baa waxay neexayaa yaa ghulaam ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka idaa sa'alta fas'al illaaha waida istacanta fastacin billaah واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف حديث كاسي وحويان ومن قواعد الإسلام ويان وتيرش دين الإسلام أي كنت أنتحي هذا كان النبي وحا وكبل بينه وشيغو ابن عباس رضي الله عنهما وويل يرى markay joogeen fi xajjat alwadaac fi yawmi carafa iyakoo taagan oo ibnu cabbaas nebiga gadaashiisa uu fadhiyo ayuu nebigu ku yidhi yaa ghulaam wiilkan yarow ilaahay ilaali amarkiisa adigana ilaahay baa ku ilaalina buu ku yidhi kalimaad baan ku barayaa kalimaadkaas waa maxay ilaahay ilaali macnaheedu waa maxay ilaahay amarkiisa ilaali waajibaadka ilaahay kugu farad yeela ilaali wixii ilaahay kuu xalaaleeyey ilaali oo xalaasha raac wixii ilaahay kaa xarimayna ka dheerow oo naftaada ka ilaali wixii macruufee diinta islaamku ku furtay la kaalay wixii munkaree diinta islaamku ay kaa reebtana ka reebtoomoo ka joogso axkaamta iyo shareecadda ilaahay ilaali adigana markaa ilaahay baa ku ilaalinaye yaa wax ilaaliya allah baa ku ilaalinaya ixfad illaaha tajidhu tajaahaka buu nabigu ku yidhi hal alliya halkaad u kacdaba ilaahay baad ka helaysaa macno waa maxay meeluu ilaahay tabaaraka wa tacaala kaaga maqan yahay ma jirto haddaad samada u baxda ilaahay waa macaaga haddaad badaha gasho ilaahay waa macaaga haddaad buuraha dhex maraysa ilaahay waa macaaga haddaad berriga socoto ilaahay waa macaaga haddaad mujtamac dhex joogto ilaahay waa macaaga haddaad keligaa tahay ilaahay waa macaaga nebiyullaahi yuunus calayhi salaam bad baa lagu tuuray yibirin baa afka u kala qaaday calool kalluun buu ku dhacay halkaa ka ku ilaaliye ku xafide ka soo saaray waa kuma allah weeyaan tabaaraka wa tacaala ilaaha ku xafdiyey yuunus calayhi salaam fii badni alxuut fii halaatha dulumaat baa ilaahay ku ilaaliyey ibraahiim alkhaliil calayhi salaam fii wasti annaar dab holcaya dhexdiisaa lagu ilaaliyey muusa calayhi salaam fii qasri fircoon baa ilaahay 30 sano ilaahay ku ilaaliyey muxamed calayhi salaatu wasalaam fii qaari xiraa baa ilaahay jalla wacalaa uu ku ilaaliyey ciisa bna maryam calayhi salaam fii wasti alxawaariyiin isagoo fadhiya oo aanan laga kicin meesha ayaa ilaahay ilaaliyey raggii raadinayay intay soo galeen ayay nebi ciise garan waayeen meel allihii meeshuu joogo waana arkaya nebi ciise una dhex fadhiya xawaariyiinta mana taaban karaan mana arki karayaan ixfad illaaha ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin bal iska daa cadow iska daaya adiga jirkaaga ilaahay kuu ilaalin nin saalixiinta ka mida oo salafkii ka mid ahaa 100 iyo ziyaadu cimrigiisu gaadhay tinna ma caddaanin baa la yidhi iligna kama soo dhicin
labaatan jir xooggiisii buu leeyahay markaasaa lagu yidhi da'daadu boqolka waa dhaaftay laakiin quwaddaadii ma dhaqaaqina maxaad ku samaysay noo sheeg maxaa se cuntaay oo kuu qarsoon noo sheeg baa lagu yidhi markaasuu wax aniga ii qarsooni ma jire ilaahay amarkiisii baan ilaaliyey ilaahay quwaddaydii buu ilaaliyey buuhi anigana maqalkaygii baan ilaaliyo maqalka ilaahay kumaan caasin leanna quwaddii maqalka ilaahay baa ii joojiyey araggaygii ilaahay kumaan caasin quwaddii aragga ilaahay baa ii joojiyey gacmahayga ilaahay kumaan caasin quwaddii xoogga ilaahay baa ii joojiyey raganimadayda ilaahay kumaan caasin ilaahay baa raganimadayda ii ilaaliyey wakhtigayga ilaahay kumaan caasin wakhtigayga ilaahay baa ii ilaaliyey maanta dhallinyarada muslimiinta meel kasta ay joogaan fiiriya markii macsiyadii zinadii fisqigii beentii iyo maaragtaane fasaadkii markuu batay 20 jirkeennii baa la moodaya inuu 60 jir yahay maanta macaasidu way ku buusbuusin daacaduna qofka bini aadamka way dhistaa ilaahay markaan amarkiisa ilaaliyey buu yidhi anigana awooddaydii iyo quwaddaydii ilaahay baa ii ilaaliyo ii sugay buu ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahak هل اللي هلك أضوك عاد إلهي وأكو أركيا وأكو مغليا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار ما يكون من نجوى من 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أبو القاسم جنيد البغدادي رحمة الله عليه يا أورنجري والله وهو معكم أينما كنتم أيضاس وهو معكم أينما كنتم مع الأنبياء والأولياء بالنصر والكلاء ومع عامة المسلمين بالحفظ بأورنجري والمعية إلهي عز وجل أنبيادنا marka lagu leeyahay anbiyada ilaahay macooga uu yahay isaga ilaahay nabiyada ilaalinaya isaga ilaahay nabiyadiisa ilaalinaya Muusa calayhi salaam fircoon baa loo diray fircoon maalin walba markuu makri iyo shir marka uu u sameeyo shirqool nabi Muusa markuu shirqool u sameeyo wuxuu leeyahay daruni aqtulu Muusa waliyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardi al fasad daruni aqtul Muusa bulayhi idaya Muusa handilay waxa ka baqaya diintiina inuu niga bedelo arladana inuu niga fasaadiya ka baqayaaye idaaya buu leeyahay Muusa han dile mana dili karaya nabi Muusa yaa ilaalinaya ilaahay baa ilaalinaya Muusa ilaahay baa ilaaliya la aj'alannaka min al-mazzunin bukeed wallabada uu fircoon nabi Muusa ugu hanjabay waan ku xiri waana ku dili mana dilin mana xirin واي النبي يدع اسمه الله سعوته اسم ربانية والله يعصمك من الناس نبي يدع اسمه الله سعوته إلهي با إلالنا يا اسكدى بني آذن حارية كاذلا او كبري النبي يدع إني وجلكو وحي اللي بل نبي يدع وحا جلكو قال لك إلالية علماء إرادان دقسقو حتى نبي جلكي سمدو الفريسكرين بلي نبي جلكي سلقى إلالية دقسي إنو كور فريستو حارية كاذلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله كل صلاة بان ندب المساجد كاي جماعة هل صوت كتان يا شيخ أون هبين دو يتوضح لنا هذا لنا ندي إن شاء الله مركان بحينا نسو زيارة دونا زيارة داسون بان يقوي مني salaadina waan wada tukanay Allah inaga aqbalo salaadu waa tirdhaxaadka diinta islaamka weeyaan
وانا meesha qofka laga gartaa ma muslim ba mise muslim ma gaaladu diinta islaamka meesha ay ka soo galaan waa shahaadateynka weeyaan laakiin muslimku isagu meesha diinta islaamka uu ka gala waa salaada weeyaan muslim baan ahay mana tukanayo isma qabanayso axkaamta islaamka oo dhan ma cada salaada waxaan ka ahayn oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dhulka loogu keenay oo jibriil baa loogu soo dhiibay calayhi salaam laakiin salaada nabi maxamed baa loo yeedhay soo qaadashada nabigu salaada uu soo qaadanayay asaga iyo rabbiga cidba uma dhaxayn ahamiyada salaadu ay leedahay eeg وانا معراجك قفك مؤمنك مركو دون إله إنه لم ناجوده ماشى إلهي قفك مسلمك وكلاه الله وصلاة ويان إلهي ماشى كلاه الله يسيد إذ أرجعك مارك تاني أقول قد بين يسيد وصلاة قفك صلاة أن لهين وحكا ديغان تايدي قفك إلهي حرير لما لويان وانا دردارا كي نبينا عليه الصلاة والسلام مركو دمنا أيي وكدر دارمو لها الصلاة وما ملكت أيمانكم ورهوي هوي بنبي لها صلاة كود دالة وصلاة إلالية وصلاة كود دالة حق إله ويان صلاة وما ملكت أيمانكم وحقوق العباد تذكر أضومها إلهي قعنتنا وسوق لي يدومر كان أسيرات كي أقلد إن يقول حرنا ملك لأنو بحينين أيكنا لوضعنا حقوق ضد إسكيل علي أبو نبي عليه الصلاة والسلام حق إلهي وحو نبي كدر دارمي والصلاة حقوق ذا بني آدم كان وحو نبي كدر دارمي والله وضع ضد إدتك وقو تاقير أضومها لا أضوم صدو وبرق أضومها أيا جري يدومر كان هوينك أقلد إنو شوقي إلهي عز وجل وقلد إنو قود حسوقي عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضي إساقونا مركوس صلاة إساقو كجري أيال للدوري عمر بن الخطاب ومديد اللقلية ركعات دي كوبات بوتو كذا ركعات دي الله بعد إساقو آننتو كان أيام مديد الله هلالي لأنه أوليك بحي مركز الله دولي مدى عمر بن الخطاب عاني هل كان لقسيي ماشي مديد اللقلية عنو كسو بودين بالليدي markaas waa amiirka muuminiinta inuu dardaarma laga rabaa si kasta loola hadlay Umar ibn Khattab naftii waa ku jirta laakiin hadal ma soo celin karaayo nin baa yimid oo war ana hadal lagu kiciyaan haya Umar ibn Khattab iyo kaadiye buudi waa nin kooma ku jir hadee toole waxa Umar lagu kiciyo koomagi lagaga soo kiciyay as-salaata ya amiir al-muuminiin muuminiinta oo dhan ilaahay ninkii madaxa uga dhigayo salaadii baa gaadhay salaadii baa taagan ereyga markii Umar uu maqlay inuu soo kala qaaday markaas uu innaha haqqun wala hadda fi al-islam man taraka salata buudi oo ka bilaabay horta anu salaadii ma dhameystirin baa loo ragcad baa ku dhiman oo xidhay hadana koomu galay hadana uu soo kacay ما تكذب ما تكن بالوين ما دميسترين هذا أنا أوحدي هذا أنا كوم وقلي مركز هذا حد بدميستري بركي الله يروى تكتو صلاة دي ودميسترتي أيو يري الحمد لله الذي أعانني عليها بقول إله يقول كلمة يقول عويي إن صلاة أن تكذان أمها النقيا بقولي وكوم وحكي جرو هذا أنا صلاة دميسترايو إنك أنا وحلا جاي بدل بدنا مسلمين يكو عقلي وشقين يو caafimaadka uu shaqeynayo dhagahoogi maqalku uu waliba si fiican u shaqeynayo adinka ay maqlayaan oo masaajida wada quruxda badan la meel walba looga dhisay ayaa haddana maanta ummadda salaadii lagu kari laayahay intii badnayd markaasuu Umar yidhi salaada waa xaq ilaahay nagu leeyahay qofka salaada ka tagayna diinta islaamka nasiibka uma laha ogaada buu yidhi amalka ugu horeeya qofka aakhira markuu taga loo xisaabina waa salaada هذا هجاجته عمل كسر هجاجي بالنبي قول عليه الصلاة والسلام هذا قف كصلاة أي كحما تبو النبي قولي وحول بوا كحمانا ينقف كسر
nolosheennan adduunyada xataa maanta aan la rabnay inay noo hagaagto salaada hagaajinaysa dad badan waxay mudaan nolosha lacagtu inay hagaajiso cidhiidhiga waxaa lagaga baxa waa salaada faqriga waxaa lagaga baxa waa salaada dulliga waxaa lagaga baxa waa salaada nabi muuse calayhi salaam reer bani israa'iil oo la guumaysanayay buu u yimiday muxuu guumaysigii kaga saaray وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا صلاة وبشر المؤمنين صلاة الله يركال ميستا أقل الذين قبلة أوجهدية بيت المقدس بأوتكن يعني يكو موسى عليه السلام ريب بني إسرائيل وحو أولي مدي دلقن يضادون كان يقحوتقن يفقرقن يعبسدن haddaad rabtaan inaad ka baxdaan salaada ooga buu ku yidhi xiriirka ininka yar ilaahay nii dhexeeya adkeeya nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam markii sagaalkii aqal ee nebigu uu lahaa uu mid walba intuu soo maray buu ka waayey baad wax la cunuu nebigu ka waayey biyo mooyaane asagoo murugoonayo markaa nebigu masjidka iska soo galay aayaddana markaa ku soo degtay وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صلاة دي أرزاق دي بالله اسكو خري إنكم يمكن أرزاق دكو صلاة كمر راديان أرزاق دا waxa ka raadiyna shaqo iyo aqoonta adduunyada iyo qaxooti iyo Soomaalidu waa qaxaysa moogta ilaa imika qaxooti salaada nabi maxamed lagu arsaaqada ka raadi salaada ehelkaaga far فريدة آد فري سنة بنبي قال لقول أوعد كيسو الصبر أرزاقتك ويدين من أدقى أنا كان يقودين هنا خير أوردنا هذا دون يسد بنبي قال لقول يريس دتك إلهي كبا قوم بخير كدم هلي دونا خير دمانتي هدو أدون خير يالو وحل لقول حلا بنبي قال لقول يري الله كبق إلهي وكعب صو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين بوها لكن إنك 10 كلين السنة يا صلاة وناكسن حتى الزمن كي نبي جينا محل لقوه لي مدحتنين بلقوه لي نبي محمد مالين تو جيريودي نكي ثلاثة أمة اللودي بأبو بكر بوها هل كو أبو بكر كسوق الخلافة الإسلام كبال ليدو نبي محمد ونول بلقو يو نبي قول يا نبي قال لقول الصلاة دي بتاعن بركابو نبي قول أبو بكر كو أمر صلاة ضدك حكب بحيه بويلي عائشة رضي الله عنها آيات رقيق أبو بكر وأن قلب جلع سنو maqaamkaaga hadduu istaago quraanka uu akhrinaya waxa ka qaalib noqonaysa beetir oohintiisa markaasuu nabigu ku yidhi adigu sawaaxibatu yuusuf baa tahay buu yidhi islaantii haweenku moogta makrigooga iska badan markaa buu nabigu yidhi war u sheegay buu abubakar ummadda salaada ha ka bixiye salaada maalinta abubakar nabi maxamed oo nool uu dadka uu ka bixiyey ayaa laga qiyaas qaatay nabi maxamed dabadii ninka talada ummadda qaban kara waa abubakar nin kale ma talada ummadda iyo mas'uuliyadka ummadda maanta ninka diinta la waa laga ilaaliyaa zamankeenan bal ninka diinta yaqaan ee diinta inoo haya waa la yasaayo waxa la yiraahdaa waa wadaad يعني ماشي qof ka dhinto baa loogu yeeraa kaale bal qofkan baa naftiisa baxday قرآن صار في هذا الحمر كله فاتحة إيسو مريو فاتحة ما بركة قرآنكم بركة كلية ما قرآن كإن لقول نغمة الله بهاي هاي وضن كان محرق قرآن كيف نقول دبرك ماذا إنك صومالي هضانا ومن القرآن إلى هاي بري وحتى إلى يومنا هذا أن توبت كينين ووحلق مرقود ويان قرآنكم يقين بو بهاي هاي كالصوني inaan ka sheekay ma jeceliye laakiin meelaha qaar kood waan ka sheegaa wadankan xaaladda uu wadankan aad joogtaan uu soo maray anagoo bari garoonka number 50 markii diyaaradu ay ka degayeen ma kaga soo daadegnay ani sheekh Ismaaciil uu dhinta Allah naxariistay ninkiina soo doonay ee baabuur yar oo markatuga nagu soo doonay ayaa yiri isbaarooyinkii aad taqaaneen tii macallin quraanka ku soo biirtay guudi waxyaabna war maxaad leedahay معلن يحرتي سيبا اسبارا دغتay guudi haba soo gaadhnay ardaygiyo qorigiina halka ku haysta kitaabkiina halka ku haysta xarigiina haysta markaas oo go'ay aru sheeg macallinka
وودادي تبليغ ويانا ويكون